Somali wagobe waxana hay laga jaray shixka midana hooyo waan ku jeelay waxana hay laga jaray shixka midana hooyo waan ku jeelay waxaan ahay abwaan barre maxamed fiido buugga caleel abwaankii laga qoray waxyaalaha buugga ku jira waxaa iska mid ah hees isa seeg la yidhaahdo oo aad u qiimo badan runtii heestaasoo qiso dhab ah oo dhacday ayay ahayd wiil iyo gabadh baa isqabay way isjeclaayeen way isku faraxsanaayeen marka ilaahay waxbay isu dhali waayeen labadii waalid ee wiilka iyo gabadha ka kala socday unbaa dhexdooda faalkaana ka qaraxday aan jacaylka qosayn waxay go'aan ku gaareen labadii dhinacba wiilka gabadha in la kala diro ayaga oo aan ku qanacsanayn hadda marka arrintaas amarkeeda ugu weyn qofka laga rabaa waa wiilkii baa si dhaqamada caadada Soomaalida ka mid ah oo aad u xuno ah laba faraal ku taagay midna waa duco midna waa habaar tan ducada ahi waa inaad gabadhaas waliba 3 dalqadood ku furtaa saan hadhow rija u imaan midna kalena waa habaaro waa inaad gabadhaas iscalfamaysan balaa idin kala raaci doonto aad iska haysataa wiilkii way la weynaatay waalidka duca iyo habaar ma doono si fudud isaga oo u fikirin amarka ilaaha iskale aan ka fikirin ayuu wuxuu iska qaatay waxa ay dacwada ku sheegayeen waalidka habaara 3 dalqadood ka dhacday 3 dalqadood markay ka dhacday gabadhii iyo wiilkii way ku qanci waayeen jaanis ay isugu soo noqdaan wuu adkaa marka heesta isasee kulay waad ka bogan doontaan miraheeda waxay u badan tahay wax walba amarka Allah ka weyne ilaahay xaqiisa way u fududahay inaan mar isku soo noqono sabab kasta waa ka liftay oo ku soo gaabsadeen waan filayaa heestaas dad badan oo bulshada ka mid ah marka aan qiso suugaanleydu ka hadlayso qisada marka taagan kama hadasho bulshada inay saameyn doonto ayaa loogu talagalay inay bulsho badan saameyso waan filayaa inkastoo dabiya olol aqalkeeni lagu shiday inkastoo dhaxdeeni uradaga ku xidhan tahay isna anigu sidii baan kugu urfayoobahay indhahaygu sidii bay ilmada kugu qubaya alla way u fududahay mar inaynu kulannin sidii baan ayaankiyo calabka u sawiraya alla way u fududahay mar inaynu kulannin sidii baan ayaankiyo calabka u sawiraya rabbigay ma eexdeen sidii baan ammaanada ebe ugu kalsoonahay rabbigay ma eexdeen